waa mar kale iyo qisooyinkeennii maanta waxaynu ka warramaynaa waa nin 30 sano aasnaa ama qabri ku jiray maalintu ka soo baxayna aad u maleynaysay qof maanta la aasay maxaa lagu arkay maxaase sababay la soco ilaa dhamaadka fiidiyooga insha Allah bismillaah alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa sayidina nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waa idin salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Somali Cooking and Culture intay habeenutay habeen wanaagsan intay maalintayna maalin wanaagsan goor kasta iyo goob kasta inuu joognana Allah subxaanahu wa ta'ala khayr baynu weydiisanaynaa inta ka bacdi walaalayaal oo masha Allah ku soo dhawaada qisooyinkeena inuu soo turjumi jiray culimadeena islaamka inuu ku soo turjumi jiray inagoo ugu talagalay cibra ku qaadasho biidnillaahi ta'ala qof walbana si uu ogaado adduunyadan uu ka tagayay muxuu walaalkay kaaga horeeyay kaga tagay adduunyadan ama walaashaadi ka horeysay maxay adduunyada kaga tagtay haday wax wanaagsan kaga tagtay maxay sameyn jiray ama muxuu sameyn jiray haday wax xun kaga tageen maxay sameyn jireen inay labada kala ogaano weeyaan biidnillaahi ta'ala qisadan waxaan ka soo gudbiyay mar labaad aan ka soo turjumay waa sheekheena ma sha Allah Sheekh Maxamed Al-Naqwi Ilaahay subhanahu wa ta'ala ashar iyo xisanaad ha ka siiyo isagoo luqadda Ingiriisiga ku soo daynaya laakiin waxaan isku dayaa insha Allah ta'ala inaan Soomaalihaan ku soo koobo nuxurka qisada biidnillaahi ta'ala wuxuu xilliyo hore oo waqtiyo hore ayaa dawladda imka sanada ka soo wareegeenba ayaa dawladda Sacuudi Arabiya waxay gaadhay inay jid weyn oo jidadkan highway-ga loo yaqaano ay samayso jidkaas oo ka baxayay magaalada Riyadh yani in waxoogaan soconayo xataa tuulayo sii dhaafayay jidkii markii yani la naqshadayna ama la hagaajinayay ama la qorsheynayay halku marayay ama la bixinayayba ayaa jidka weyn ognay inagu caalamka injineera loo soo diraa laakiin kulli baadiyaho kale dadka meesha degan u bama gudun qaata iyo hangool ka bacdina geedkii ku soo hagaagun baabay jiraan marka mararka qaar kood wadooyinka baadiyaha markaad marayso waxaad arkaysaa subxaanallah neefadu dana xoolo gaari jiray yani khatar badan ba ka imanay waayo uma eegan wadada nulaynka sida u soconayso khatartana ma yareeyaan inta badan oo kama fikiraan khasaarahana lagama fikira ka iman karo waayo wadadu markay qalqalooc leedahay gaarigan xawaara lagu wado neef xoolaaba ka inta kaga soo boodi kara dhibaato kala iman karta yani inta badan lagama fikiro wadankeeni laakiin caalamka waxa jira in jidka yani dal la naqshadeeyo kullimka wax waa isbedeleen wadankeeni laakiin caalamkan in wadadu halkay marayso siday u soconayso yani dhulkay dhex marayso halkay ku haboon tahay halka ugu dhow ee yani ay wadadaas meesha loogu talagalay ka gaadhayso waxyaabo badan ba la eegaa adoo calaa kulli xaal injineeradii baa iyo dadkii baa yimi meeshii baa la qorsheeyay wadadii baa waxay ku soo hagaagtay tuuladii baa waxay kaga soo hagaagtay xabaalihii markay kaga soo hagaagtay wadadii baa loo yimi dadkii waxa la yiri waxaan wadnay yani mashruucan aan wadnay marka wadadan baa la hagaajinay wadadan xabaalahan bay ku soo hagaagtay maxaa xal waxa la yiri maxkamadii sare la tagay يعني وين محكمة الله تجا محكمة مرك الله تجانا سيدنا أغنى هاي عالم الإسلام أما دون دينا مسلمك وحي هدوي هو يعني حبالة إيو دحل إيو يعني دي إسلام الشرعي إسلام سودي حقلاية مركا فقه بالو رادي محل جاية ليا محاين كدو حوري وحلا سمي محكمة دي ما لتجي كبعدين فقه جيب على بعض محل السمية يعني محل جاية لكرادات كان يعني قريه دي الدنيا ده كلها عين إلا كواسة هو الصحة هاي guryahoodii adduunyada ku lahayn dadkan laga rarayeen awoodda lahayn maxaa laga yeelaya haduu wuxuu maxkamadii iyo culimadu wax isla soo ogolaadeen in xabaalahan meesha laga raro xabaalihii waa lagu soo noqday dadkii tuulada iyo dadkii injineerada ahaa iyo kambanigii waa la isugu yimid waa laga raray xabaalaha wuxuu muddada yani qof lagu aasay waxa ugu dambeysay 30 sano waxay ahaan xabaalo qadiima oo 30 sano ay ugu dambeysay qof lagu rido xabaalihii wuxuu waa la qodaa sidii kolba xabaal loogu gudbaayay yani xabaal yani dadku qof yani meel ku dhintay oo lafa ku googay oo hilib ku huuray oo wala garay wuxuu ur iyo wuxuu xabaal ayaa waxa loo tagay buu yiri xabaal wuxuu yiri 30 sano xabaashi u dambeysay oo la aasay 30 sano ka hor wiil wuxuu kafantiisi tabtii tahay inay googooda iska dhaafo xataa aanay dhibic casaani soo gaarin ama wasakh sidii nadiif ay u tahay
waa la furay jirkiisu waa tabti sidiiba u jilicsan yahay sidiiba jirkiisu yahay sidiiba udgoonki uga soo uraya wax kasta wuxuu yiri yani qof haddun la aasay inuu yahay subxaanallah waa la kambanigii waa la weydiiyey dadkii waa la iska reeyay tuuladii waxa la yiri aabihii baa jooga noolo waa halka maydkii baa la soo qaaday gurigii aabihii ee 30 sano ka hor laga qaaday ayaa dib loogu soo celiyay aabihii baa subxaanallah leeyahay arintan baan wadadaan aanu bixinaynay xabaalahaasi ku hagaagtay maxkamadaanu tagnay shareecadaanu yani raadsanay waana loo ogolaaday inaanu meeshii ka guro wiilkaaga iyo sidana baan xabaashi ka soo helay waxa la yiraahdaa aabihii subxaanallah gurigii 30 sano ka hor laga qaaday maydkii baa dib loogu celiyay waxa la yiraahdaa subxaanallah allahu akbar wuu yaabay wiilkiisiiba wajiga ka furay wiilkiisiiba dubo eegay على كل حال ويلكي هدنا دب لو قاداي xabaalihii kale halkii la geenaya la geeyay dib loo aasay markii dib loo aasay ayaa de mucjisa meesha lagu arkay waxay markaa noqotay in loogu soo noqdo aabihii dib si loo wareysto wiilkan muxuu sameyn jiray 30 sano ka hor la aasay ee hadana sidiisii waxa la yiraahdaa aabihii wuxuu yiri anigu wax wiilkaygaas sameyn jiro saayida ma garanaayo subxaanallah wax yani daandhahdo laakiin mid baan xasuustaa buu yiri إلا maalintu qaan gaaray wiilkayga salaadi kamay tagin fiiriya hal salaadi kamay tagin buu ilaa maalintu qaan gaaray salaadi inaanay ka tagin iska dayo salaad kasta xilligeedu ku tukanayay waliba ta u sii dheer buu masaajidka wuxuu ku dadaali jiray inuu leenka koobaad kala buu Allahu akbar marka wuxuu anigu intaasan garanaya wiilkaygu salaad sax buu yani dadkeenu qofkaas waa salaad sax ayuu ahaa wax marka sheekha wuxuu sheekhan soo warinaya arinta wuxuu yiri buu yiri subxaanallah ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ilaaliyay salaadii uu ku faral yeelay waayo weyn ognay shahaadada ka bacdi amalka koobaad ee la inagu faral yeelay waa salaada hadii hagaagto rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu noo sheegay amalkeena kale inuu hagaagayo salaadeena hadii xuntayna amalkeena kale xun yahay Allah subxaanahu wa ta'ala salaada hayna qurxiyo hayna hagaajiyo wuxuu salaadii buu ilaaliyay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala adduunyadii buu ku ilaaliyay isagoo sharaf iyo wanaag loo adduunyadii ka kaxeeyay oo ka dhintay dadka qaar ba fisqi iyo xumaan iyo faraha iyo cagaha iyo lugaha meel kasta kula jira ku dhinta isagoo wanaag ku jiro ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga adduunyadii ka kaxeeyay waa koow talabaad wuxuu qabrigii ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala jirkiisa ku ilaaliyay waayo wasalaadii buu ilaaliyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa jirkiisa ilaaliyay تصدحات إلهي وحين وقرجينا بول إن شاء الله تعالى إنه قيامهنا إلالية إلهي دك سنبات قيامك إلالية هذا walaalkay ama walaashayda ii dhageysanaysay sideed salaada ku tahay salaadaadu ma dib bay u dhacdaa salaadaadu miyaad ka tagtaa salaadaada hadaad wiil tahay masaajidka ma tagtaa xilliga salaadu kuu soo gasho miyaad ku mashquulshaa social media ama miyaad game ku mashquulshaa ama miyaad ciyaaro aad daawanayso ku mashquulshaa ama miyaad business iyo shaqooyin ku mashquulshaa aad ku jirto ilaahay subxaanahu wa ta'ala waajibkiisa hadaynu hagaajino oo aynu ka soo baxno ilaahayna subxaanahu wa ta'ala cid abaal gudda waa cid ugu abaal gudka wanaagsan leh insha Allah ta'ala naftayda iyo nafihiina waxaan kula talinayaa salaada inuu ilaalino rasuulka kaleey salaatu salaam shaygu u dambeeyo inoo dardaarmayna as-salaatu salaabay heed somaha salaada hala ilaaliyo waxay idinkaga tagay insha Allah ta'ala inta qissa kale isugu imanayno oo tanoo kala biidnillaahi ta'ala ama qissa ka soo horjeeda oo yacni qof aan salaada ilaalin iyo dibkii ku dhacday taasna rajeynaya biidnillaahi ta'ala inaan tan ku xigsiiyo hadii la haydmo waayo hadaad midig sheegto waa inaad bidixna sheegtaa hadii la haydmo waxay idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh